maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii badanaya wax soo saarka tiknoolajiyadda casriga ee caalamka. haddaba ku soo dhow mawduucana maanta. kusoo dhawow daawadaha qiimiga badan channelka maanta caalamka. fadlan channelka haddii aad ku cusubtahay oonad hore subscribe u saarin, please subscribe saar oo hadda nagu soo biir si aad u hesho hadalba video cusub ee soo gelino. mawduucan maanta waxaan kaga hadli doonaa qalabyada cusub ee tiknoolajiyadda 2020ka la soo saaray qaar kamid ah. kusoo dhawow mawduucana. qalabka koobaad ee barnaamijkeena waa flash cam obi. waa kaamirad ka duwan kaameradii dhammaan aad hore u arki jirtay. kaameradan waa mid qaabkeedu dambeeyahay sida tuumbada oo kale, loona isticmaalo in la qalqaloociyo dhinaca doontana aad u jeediso oo aad istaajin karto dhulka. sidoo kale waa kaamerad ay sareyso tayada duubitaankeedu, taas oo dubta videoyada 4K-da ah. sidoo kale way fududahay in aad u qaadato meel walba oo tagayso, bad ahaato, beri ahaato, meel walba oo tagayso. sidoo kale waa kaamerad memory leh oo sareeyo xifdiga ama in ay ku hayso memory la'aan videoyo badan. qalabka labaad ee barnaamijkeena waa airblock. waa mid ka mid ah droonta duusha oo la soo saaray 2020ka, kana awood badan kana speed badan kaameradii hore ama droontii hore ee jirtay. droontan ayaa ah mid la isku xiri karo noocyo aad u kala duwan, sidoo kale loo isticmaali karo habab lana kala furfuri karo, la iskuna xiri karo. sidoo kale waxaa lagu xiriiriyaa telefoon walba, Android iyo iOS, telefoon walba oo haysid. sidoo kale kaameradani haddii ay wax duqeyn ama cilad ay gidaar ku keento ama ay meel jiidho maaha mid xumaanaysa, laakiin waxa u kala dhacaysaa intii qaybood ee la isku xiray, kadibna dib ayaa la iskugu soo xiri karaa. qalabka saddexaad ee barnaamijkeena waa cubic note. waa qalab lagu daabaco note-ka ama waxyaabaha yar ee aad ciwaanada oo kale, lambaraanta oo kale loo isticmaalo in lagu daabacdo taleefankaaga adigoo haysta. waxaad la xiriirinaysaa taleefankaaga, kadibna waxaad ku qoraysaa note-ka ama waxaad u baahan tahay inaad ku daabacto printerka ee fudud ee taleefankaaga la shaqeynaya. sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa xaashiyiisa color alla colorka aad doonto. sidoo kale waxaa shaqeynaya taleefanada kala duwan sida Android, iOS iyo telefoonada kaleba.